ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي دمان ملك سودنا دافذك ونوشهين وحيد الله ينبت قليد نحرست إلى دشينها أهاتو بعد السلام سوري دو هذا برنامج كيني بس وذكر إن أحلى قصص before intaan idin gelin qisada ka hor baryahan waa ila socotiin walaalahay inay qisooyinka soo daaheen marba sidii la rabo soo galeynin marka wali safarka ku maqanahay gurigeyga ma joogo musaafir waa dareemi kartiin anaa jaanis u helaynin ma ogi gurigeyga ciyaal joogeenbo hadda laakiin maasha Allah guri waxa dad waaweyn kaliya joogaan hadda moor u sii heli lahay faraaqo laakiin maalin walba waa socdaa miirin meel kale barnaamijyo kale marba meel aan aadaa anyway qisooyinkan oo bilaa marka la soo dulqaato insha Allah haduu Ilaahay idmo macnaha qisada hadda aweysiin ays dhihinin abay filsan maxaa ku dhacay ana idinka jecel inaan adduunyadan u shaqeysto aakhiradan u shaqeysto بعد السلام بعد ولا له قالق أو أخبارتي إذا إير إذا قيسي قصة أنا بلاوايا قصة أنا قبل أبايا إلى وذاكتي قصة وحواي كعبر قاضي الشموضة لنا عنه يقينت إلهي يماركتاي إلهي وحلا قبري إنا لقوينين أوقف إيدي سا لنا عنه وحوقف إيدي سا إنه ظلم كفي عنين وقصار وضم بينيس marka waxay tiri abaayo waxaan ahay gabar dhalinyaro ah soo baxday maasha Allah tabaaraka raxmaan diinta raacato waxaan isbaranay wiil waan iska helnay waalidkaygu iga soo doontay waan isguursanay ilaahay calaf ayuu isku keendaray aad iskugu qanacsaneen nolol aad u qurux badan waan macnaha ku nooleen farxad reereen kalsooni leef macaan waxay tiri abaayo anagoo xaaladaas ku sugan ayaa waxay dhahday wiilka faamilkiisa oo eedadiisa soo korsatay waxay tiri dabaqa aan degan dhinac ka degan marka ii gabar eedada dhashay markasta waa la ii yimaadaa dir xilliga duhurkii xilliyada maaragtay adiga oo munaasibka ahayn oo dhan waa la ii imaadaa gabadhii soo labisatay makeup soo marsatay maamadii soo fariisanayso gabadheeda saan waa gabadha intee ka baxday maanta dhan gabadhaasi ka sheekeynaysaa tir amaanaysa waxay dhahday xaqiiqatan binu aadniya ah ani waa dhibsada wixii laakiin ma la iga deynin oo wali waa la igu wadaa sanadka ugu horeeyay oor waa yeela waayo sanadka xigay anagoo isku qanacsanahay tir waqtigii goor dhamaada xataa ma naqaano sanadka la sheegayo oo ummadda ku taagan anagu maba nagu taagnay tir leefkeenaan wadanaa si aad iskugu qanacsanahay qofba qofka kale dharara intuu ka imaanayo nolol macaan oo happy ku noolna markii dambe maxaa ogaaday in gabadhan lala rabay wiilkan laakiin calafkii aniga aan noqday arrinka culays fara badan oo igu qabtay tiri haddana su'aalaha markasta la weydiiyaa uur ma lihid miyaa ma yeelanaysid miyaa goormaa dhalaysaa adiga dhakhtar ma tagtay wax maantoo dhan ma layga joojinayda dhakhtarkii waa tagay waxaa qabta malahana laydhah xaajigeyga waxaan ku qasbaa anigana dhakhtar in asigana tagaana tago oo i geeyo waa tagnay waxba ma qabtiin aan alla tiro culays fara badan isoo koray sanadkii labaad oo ah inaan ilmo rabo inaan waxaan igu socdo aan maaragtay aan u adkeysan karin
marka xaqiiqatan talada abaayo dhinaca iga soo weydiis aniga naftirkeyga laakiin waxaa laga yaabaa gabdho badan oo dhibkan haysta inay dhegeysanayaan taladan sii waxay ahayd abaayo waxaan ku yiri xilligaas oo duhurkii ah ambaba xilliga oo idinka aad waqtigiina qaadanaysiin cidna ilbaabka ha ka furanina because qofka hadduu asiga oo xishoonaynin wax laga sheegi karo ma lahan qofka galabka la isku yimaado inaa galab kasto xilligii wiilka imaanaya isku soo aadiyay xilliga reerka qadeynayeen waxaasoo dhan waa laga fiican yahay marka aniga waxaan ku yiri ilbaabka gambaleelka ka siib taase ilbaabka yaa la furin dhe taase dantiina iska raacda galabka markii la gaaro ilbaabka fura oo dantiina aad usoo kacdaan hurdadiina uga soo kacdiin waqtigiina aad qaadateen shaah iyo casiriye iyo sheeko u baahan tihiin hadday idin imaadaan oo maamada weliba ay tahay falilaahi alxamdi gabadhana baqbaqi ka fiiri haba ka furin aan ku yiri aniga kule waa laygu diidi karaa laakiin xaqiiqatan nafsadeeda kale aan qofka kasoo qaaday gabadhi abaaye aheeda salaatuleelkeedii bilowday suuratul baqara bilowday ilaahay subxaana watacaala boqorka habeenkii si dhab oo kaamil ah u weydiisatay waxay ilaahay ka rabtay maalintii dambeetood way xanuunsatay dhakhtarkay tagtay stress inuu hayo u malaysay way ku dhici jirta dhiigga macnaha inuu kasoo daaho oo imaado oo waxaas markaa stresskay u aragtay inay tahay dhakhtarkay tagtay intay dhakhtarka aadin ka hor wiilka wuxuu usoo gaday bahalka laisku baarayo wuxuu dhahay maybe inaa uur leedahay isbaar maya tiri ani mali waala wuxuu ri bliis orod bax soo fiiri bas soo fiirisay ma si daqin marka laga sheego mid kaloo soo qaada sidoo kale mid kaloo soo qaada sidoo kale dhakhtarkay tageen uurkaa loo soo sheegay maasha allah markaas waxay tiri maskaxdeeda ciyoon waa soo sixsixi waay dhahda gabadhaas pressureka ay dadkaas isaareen darteed waxaa la ii yiri tiri uura leeda marka ilaahay subxaana watacaala boqorka horta wuxuu ilaahay ku israaqay wiil qurux badan beautiful boy maasha allah tabaarak raxmaan uu ilaahay ku israaqay beebigeeda yarkay hadda haysta maasha allah waxay dhahday markaan dhalay kadib waxaan ogaaday in reerkiiba gabadh ay u diyaarinayeen wiilka oo la rabay in lagu daro ku labayso qasab la dhihi rabo waxyaabaha ugu badan dadka hadda haysta waa noocaas in la yiraahdo guurso qasab ku guurso naagtan kale la guurso wax fiican ma ahan qofka kuu fiicnaan doono ilaahay subxaana watacaala boqorka hayaa og qofka kuu naxariisan doono ilaaha og qofkan aad maanta dhasanka gelis waxaa laga yaabaa beritoole inuuna ku anficinba oo xaasidkaaga noqdo ilmaa la dhalay gabdhaa dhashay hooyaa tahay owlaadaa leedahay rooroon beri guursanayaan dhibka qofka aa la raadisid adigoo kugu soo laaban karaa beri marka qisadan waxaan ka dhaxlaynaa daacadda inay guuleysanayso qofkii ilaahay si dhab oo kaamil iskugu dhiibano inuu guuleysanayo qofkii maaragtaaye ninkeeda iyo ninkii naagta isku kalsoono ambaba wiilkii gabadha isqabo isku kalsoono inuu waxba soo dhexgeli karin faa'iidada ay leedahay ilaahay la isku xiro faa'iidada ay leedahay salaatuleelka saqda dhexe loo kaco ilaahay qur-aankiisa oo la xuso maalintaada iyo kuwa bilaaban iyo kuwa dhammaan adoo qur-aan akhrinin arintaasa markastaba idinkula taliyaa weligeen idinkula tali doona insha allah nafsadeydani kula talin doona insha allah waxaan kaloo ka dhexlaynaa qisada khasaarada ay leedahay iyo bahdilka ay leedahay wadda aadan waddadaada ahayn oo munaasibkaaga ahayn meekab laysu soo mariyo guriga xilliga wadaadku imaana la yimaado wallaahi laa faa'iida ilaa waxaa ka qaadaysaa qiimahaaga karaamahaaga oo hoos u dhaco ilaahay wuu israaqay abaayo sujkeedii macana ay jecleed asigiyoo jecel waxa dhibka uu culayska yarkoo haystay ay dareemayeen wuxuu ahay ilmaha
ilaahina wuu siiyo maasha allah ilaahay ha usoo badiyo ilaahina wuu saacidiyo naftayda intiina waxaan idinkala dardaarmayaa walaal macaan qof banu aadmi erey oo dhibsado weligiin ha ku samaynina wax oo qofku walaalka dhibsado ha dhihinina walaahi afkaaga markay kasoo baxayso waa yar tahay laakiin asiga way ku weyn tahay subxaan allah